waxaad sheegtay in aad ilaahay kugu siiyay macaanto macaanto ilaahay sax waay mulkii horta ilaahay bixiyo ilaahay weydiistay wuu isii gabar oo qabiil weydinin inta ku dhalatay la dhahin yaa tahay la dhahin ayaa ilaahay ugu siiyay lacag laga qaadana wiliba ani wax la dama inaan wax la ugu sii daro waxaa jira dhalinyaro badan oo inay guursadaan raba haddana awoodi la ma uga faa'iideyn kartaa ducadii adiga ilaahay guurka kugu siiyay adigoon shilin ka bixin jaceelku waa wax jiro laakiin dadka masaakiinyaasha ku dhaca waan gartay qofka aan waxba guurka awoodeen oo lacagtii jeebkii oo maadaama gabadha jeceshahay camal haddii ku dhacdo maanta $500 si bas aad awoodin tii marka waa kugu ziyaada sax laakiin wixii hada awoodid isla markiiba waa ku suurtagala taajiriinta u suurtagala marka waxaad leedahay jacaylku wuxuu dib ku hayaa oo kaliya dadka jaabka masaakiinta oo jaabka gabdhaha aqoonta waalid wax u doonay qofkii soo doonto si fiican u siinay ay siin jirin in wiilasha jeebkooda hooseeyo kuwaas oo ku dhacay jacaylka tiri guusha way saaxiibo badan tahay guul daradana wax saaxiibaba male sax maxaad ku cadaynaysaa arintaas waa run haye marka guul daraysato oo aad ولوش كهذا سؤال رفاضي عندكم ربط ملهم. صح. ويكاكل دومنا. ويكاكل دومنا. أصحاب هذا كاكل دومنا. إهل كذا كاكل دومنا يعني. وأقول شيء هذا مركي عام كلها وحاس كاس مع أنت أن هذين ده إله جور يسهل. تذكر هاي لها إنك ووالين هاي. قار حتى وضد حتى أصل صعب هاي ده يعني وهم يعني لو صبرين. نقول ما أنت يعني جور جي تذكر ساس إيسو بوقنا. سور هذين. سور هذين. ويل كنا أنت دكان ولا الك أنا إلى الأشياء اللي ما أنت. كي قرابة قرات أنا حتى أنا إلى داشين كاسم تكان أنا إلى داش نيجي ما أنت بقى أنا إلى داش اللي مركا ساسو جوش ويساحب بدن تاي اللي جاي أرنت سكينش أنا هاد جد جيلا كي ووالني الله هيلا لكن مو والنين دنا يود صح تعرف تمشي أسيجيس أنا قف حافظ القرآن هاي القرآن صوبرته أو معني صوبرته قفك مرة هاد القرآن كبرته معنيه سي قدام كيس برتنا جاهل من نقول كرها من حفظ القرآن فقد درجة نبوة خير جنبها الله وفق هذا القرآن كبرتو معنيه برتو أو كل رقمه ما شاء الله درجة نبي هم بارسينيا لكن وحي أسبوع كسر دقائق ملها مركز دك أنت أبدا وإيميلنا وفق جاهل واي وفق أنا حق ما دق هدي عن جاهل كنا قلنا وف دين له إيمان له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ونكسن ولا الله أن جعلنا ما أنتوا حمرتين واحد جدي ولا القصود أو رح مرون channel وادو هاي ولا وكله هاي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أد بقوله هاي برنامجك يوردمان ضد كوحرين channel كينا أد بعدين سلام يا دمانتين وكاجم هاد علينا reer TikTok waxay ku garan ogyihiin iicun macaanto magacaas sidoo kuugu baxay magacaas iicun macaanto waxay ugu baxay anoo macaantadeeda cunto siisanayo oo daacad u ah cunta ay keentay marka cuntada waxay dhahdeen aniga waa dhirigsanahay cuna ay dhahdeen sax marka aniga kaliya inaan cuno waa in dham weysay waxa dhahay si ay ku imaado marka iicun macaanto afka u galay ما شاء الله أقرأنا dadka aan aadka ku aqoonin si taariikhdaada oo kooban waa kuma geedi xageed ku dhalatay kuna barbaartay dadka isweydiinay geedi waa kuma xagee ku dhashay xagee ku barbaaray aan wax ku dhashay noodistana ku dhashay gaar ahaan magaalada Wajeer tuulo dhow ما شاء الله meeshaas ku dhashay oo ku barbaaray ma garat waan gartay meeshaas ku dhashay Wajeer magaalada wanaagsan baad ka soo jeedaa waxbarashada geedi ilaahay harkay ka gaaray waxbarashada hoogaa qof iska tabarole ahaan sax galaaska 7aad ugu carab galaaska 7aad galaaska 7aad ugu bax waan gartay marka noloshii baad xamaaligeedii kadib nolosha inaan anoo yar shaqo bilaabo hoogaa bilaabay waa arin aad u wanaagsan dadku waxay yiraahdaan Nairobi darbigeeda iyo dadkeeda midna lama dugsado صح adna waxaad tiri Nairobi qof joogo ayada jaamacada uma baahna inuu jaamacad kale lacag ku bixiyo صح
haddaba adiga nolosha Nairobi maxay ku bartay nolosha Nairobi ani wax badan ay bartay waxyaabo maanta haddii aan iskuulkaas aan sii wada lahaa aan ku baran lahayn ay bartay wax badan maxaa ka mid ah dadkii oo yani qof kuu soo xigo oo maanta oo ku soo dhaweyn karin oo ku rabin camal haddii xaalad kugu xumaato ehelku dibraa camal ma jiro waa in aad isdibirtaa oo aad isku tashataa guriga jiifa iyo balwadaas sameynaa iyo saas abartay ma jirto waa in haddii aad aqligaada shaqeynaa oo maskaxa aad leedahay waa in aad isku tashataa oo maxog mashiinbiga ay xirataa Nairobi markaad joogtid sax weyn maadaama aad ka sheekaysay inaad Nairobi joogtay xaalado kala duwan aad ku martay waxaan isdhihi karnaa geedi asagoo yar bay nolosha waayaara ka dhigtay marka maxaad kula talin lahayd dhalinyarta aan waxba haysanin ee Nairobi jooga sidaadoo kale laga yaabo inay waxbarashadii dhexda uga hareen amaba kuwa hadda u soo socda ee isla Nairobi baa noloshaada يعني هر كجاري دون تايجو مركز مالي يحكي بالله بدون أنا أقول اليرا وحلي هاي يعني أنت بحبرشة أنت أبو ده برتانو أنت أبو ويسو أصلا إذا عمل يعني هو قاعد جاب دنت إيشنا وحيلين لي هاي يعني اسكت تشت إذا ما كان مجرتو ما أنتوا أوتي أنتك لا شقية أنتوا أبدا يعني أنتك ما تحجليان حق هذا صفة عن الله مسيو ما دام هدي أضمان تنروبي عمل قف وشقينا يصير يعني فسح مليه وحمله اتصفي أنكو أقوى حرمر إنا جارت اتخب كمالهن حوج هذا بس على الرباع إن مالن هدا أضع شقينا سمالن هدا حنوستيد وها لولية هاي شقد ولا غيرنا أنا وحن أوجا هاي أنا ما أنت قفنا عن واحد وهيسن حبت علين شاه أنا ما قاعد كشقينا نروبي علين شاه وكستم عن سينا شغل إيجو في جي أوجا وأنا إسله شقداس سفي عن أوجدو شقداس أوجدو كاستم كلام هجاجي ما ماشي كاستم هيا لطو أوقف كمش إسكالي أنا أود ذاله صح أيا حبت علينا كاستم ديرات شاه أنت سيا حبت علينا ديرات ده علينا تي أنسيا اللي ده هاي شيكا كو إيرساي جوش شقدا جوش سيب شاشتك وهي راس عمل أسكي جيران أوقف كمسكح هذا كدير كرو لكن وحيد الله هاي ناليرة إذا خبط ملهان إسكو تشتو أو وحاس عمل وحبها وأركن عقدت وحاس أو قادنا مرول بإذن كدان له دان تارو حلا مغار إيه لو قصة هذا شقيست عقليين قبل الله لان يرد وتلاعبون أحسن مرات بدن وحنا ركادي وضحها هي ضدك الله شقية الجارة هكو إيجان ضدك هوستو كنا شقالها أو نحرستان ودريم كرا حيابو بدن بعد كسر مرتي شغالني ماذا يد كلي ويارني ماذا سؤال له هاي مركا أيقول حد كل تلين لايد هذا مركلة إن وحكي بدلان قابك ولا ضخ معي عندك ولا له وشقة ضدك الله شقية وهاي كأبسن لها إنه قابك كل أجمعين إنه وحكي بدلان أو وحكي بدلان بقول كيف بقول إنه وحكي بدلان إتكستو ما أنت واحد هايسته أو شقة لو قبنا أيو وحكي أبسن لها inay wax isbedel fiican sameeyaan oo shaqaalaha xaqooda siiyaan oo ixtiraamaan oo maalmo fasax ay noolaadaan siiyaan oo waqti soo qaataan maalmaha qofka laba weeg ama bil qofka ku shaqeynayo hal maalin amal inaa fasax siisid oo mashaarkiisna aad ka goosina ka codsan lahaa Nairobi arintaas dadka loo shaqeeyo maalin hadaa gambisid ama hanuunsatid ma hanuunsinida lagu leeyahay shaqada soo gal hadii kala shaqada baribo hadaa imaatid shaqadaada qof kale ku jira oo imaan adoo u baahan oo yani ama xanuunsan ama hooyada ehel ku imaaday oo marti aad ka maarmin ku imaaday oo maantaas ina waqti la qaadatid shaqadii laga fiijina sax marka qof hadii aad bashar yar aad leedahay oo waxaad hadii adigu wadan kartid cid ku haysata ma lahan laakiin mar hadii ay gaarto ina shaqaale u baahatid oo dheeraad ah qofka shaqaalaha ku imaado waa inaad si wanaagsan aad ula dhaqantaa oo yani maskax fiican aasiisa oo aad maskaxda ka dilin wixii aad dheeraad aad ku tarkatid aad ku tarto xaqiisna aasiisida aqoon ilaahay isku naxariiso ma baa waa arrin wanaagsan waxa jira dadyo kale oo dadka u shaqeeya
laga yaabo qofkii oo muddo badan u shaqaynayay ganacsigiisa waxyaabo badan ku soo kordhiyay dadaal badan quraaya dad baa jira aan dalacsiinin oo wixii uu qaadanaya wax ugu darin qofkii meeshii uu ku hayo qofkana kama maarmo oo shaqadii kama tegi karo kuwa ayaga maxaad kula talinaysaa ma inay go'aan qaataan sidoo kale kan loo shaqaynayo inay xaqa iska ilaaliyaan qofkan maadaama uu muddo joogo xuquuq buu ku yeeshay ma faraysaa inay ayaga naftooda dadka hoos u eegaan dadkaas boqolkiiba boqol in hoos loo eego waay qofka haddii waqti dheer kula jooga camal yani aduu kugu mid yahay qofkaan intaas kuu samraayo waa inaad dalacaad siisaa oo aad u dulqaadataa wixii aad ku tari kartan aad ku tartaa waa arrin aad u wanaagsan marka aan ka soo gudubno arrimahaas su-aashaan waxay ku leedahay adiga geedi ahaan weligaa ma gabayday ama wax tixa ama tirisay ama xaalad kula soo gudboonaatay erayo weli ma ku cabirtay wallaahi waxaa hadda gabadha hadda asla joogna macaantada aa u heesaa bas macaantooda dhuubanay dhiigga waxaas camal ubaxan adiga iskale oo macaantaday ku koolkoolisinaya sax taasna waxaa ii keentay yani kalsooni iyada aan u qabo masha Allah waxaa ii keensiis waxa lagu kalsoonaadana qoyska wax ka wanaagsan ma laha ma jiraan waa sax marba waxaan ku arkay adigoo dhahaya duruufa isiida da'da yahay iga reebina isiida duruufa صح marka maxaad ugu dhaliyay maalinka yani ma duruuf jirtay baad ka turjumaysaa duruuftu way jirtaa duruuftu waa duruuf yar oo ani haysatay sax waaye marka taas ay u kalaftay inaan duruufa isiida aan dhaho ana nolosha rabo inaan horumar ka sameeyo oo waxyaabaha aan jiraanjarta ku kori lahaan hooga iskeen waayeen taas akan waa ku rajaynaa inaad maalin maalmaha ka mid ku gudbi doonto biidnillaah insha Allah geedi iyo jacaylku sidee isku yihiin geedi iyo jacaylka aad bay isku fiican yihiin haye ma sha Allah aad bay isku fiicannahay ma jiraan yani waxyaabo aad kala kulantay jacaylka ama dhib ah ama xusuustaada ka go'ila oo wanaag way noqon karaan wallaahi waxyaabo oo hadda wax qalbigay ka go waaye ma jirto qofkii aan zaid u jeclaaday macaanta ahayd macaantin ilaahay alaf isku keenay dare tan kale aniga qofka si wanaagsan kula dhaqmaa qof waxay rabeenna maba rabo qoftii rab danaysan waa daneeya sax qoftii humaysan waxa oo zaid aqla yani maskaxda maba uqdad ugu qaado waan gartay marka adiga ahaan jacaylka maxaad ka aaminsan tahay ma wax jiro mise wax dhalanteed ah ama khiyaali ah jacaylku waa wax jiro laakiin dadka masaakiinyaasha ku dhaca waan gartay qofka aan waxba guurkii awoodeen oo lacagtii jeebkii oo maadaama gabadha jeceshahay camal haddii ku dhacdo maanta $500 si bas aad awoodin tii marka waa kugu ziyaada sax laakiin marka hadaa awoodid isla markiiba waa ku suurtagala taajiriinta u suurtagala marka waxaad leedahay jacaylku wuxuu dhib ku hayaayo kaliya dadka jaabka masaakiinta oo jaabka gabdhaha aqoonta waalid wax u doonay qofkii soo doonto si fiican u siinay ay siin jirin in wiilasha jeebkooda hooseeyo kuwaas oo ku dhaca jacaylka waxaa jira dhalinyaro badan oo inay guursadaan raba haddana awoodi la ma uga faa'iideyn kartaa ducadii adiga ilaahay guurka kugu siiyay adigoon shilin kaa bixin ducada insha Allah horta guurku waa calaf sax ilaahay ana fududeyn karo sax laakiin ani waxaan ku duceystaa mar walba waxay igu adkaado Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al-hasana idha shi'ta sahlan faj'al umurana umura al-muslimina kullaha sahlan ba iska dhaha ilaahay waan iga aqbalaa waan gartay marka dhalinyarada oo jeebkooda hooseeyo rag iyo dumarba waxay ka codsanaa guurka in la fududeeyo xagga gabdhahana waa inay guurka fududeeyaan dhalinyaradana waxaa ka codsanaa mar walba inay daacad ahaadaan mar haddaad daacad tahay wax walba ay ku fududaanayaan laakiin haddaad been sheegtid oo gabadha aa qiyaamaysid ama isdabamar aa samaysid ilaahayna waa kugu adkaynaa qofkiina waa kugu adkaanaya marka haddii aad laalaab wadatid ana tamay kugu adkaanaya waa sax horey waxaan u daawaday muuqaal waraysi hore aad u sameynaysay adigoo yidhi anigoo guurka doonaya awooddaysina aan lahayn ayaa maalin waxaan akhristay aayadda aan u malaynayo inay ku jirto aali cimraan allahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa waxaad sheegtay in aad
إلهي فوقسي معنته معنته صح إلهي صح واي ملكي هرت إلهي أبيحيو صح إلهي ويدست ون إسي جبر أو قبيل ويدنين أنت كل على تل إلهن يا طهيل إلهن يا إلهي أوصي العقل قاعدين أقولي أنا واحد لدم أنا واحد أوصي درو بايو مالنت أم كورسنا وحب ما هيسن وحا هيستي لعقو سديد كون عجبك وجرت أوكي شلنا صح سديد كون ما أنت بقلان مش أي دقنين بقلان أهد إلا بقلان أبغارو كوجينا صحيح marka qoyskaas halkaan ka salaamaya waa qoys aad u wanaagsan dadka oo gabdhaha dhale dhamaantiin qoyskaas ku dayda idin leeyahay way mudan yihiin in lagu daydo waa reer gobax ilaahay ha barakeeyo horeyna waa looga hadashay hadda kuma sii fogaanayno sheekadoodii marka meeshaan ka salaamayna dhamaantood su'aal kale haddii aan ku weydiiyo adiga guurka waxa adkeynayo ما قبلها هذا عرفتها مسوي والدكم والله جورك أنا تم صومالي حتى يعني لابد إن أبو كعدجيه صح قبلها حقود أبو كعدجيه هاي رجع حقود أو أيضا قبله سووا ناس نقول لهم عاملنا يعني لا بدن قبله مرسينا إنه وكان كرا حاجة فمل كان وكعدجيه أو فمل قبل مركي عاب هايو أما هايو إن كان رها قبل مركي لحظة يا وحلليه هاي أنتو كل شيء يو هاي مهو قبتا مها فيها لليه صحوي قبلنا وابا قبلها قارفات أيضا إنه جورسان والد في أنا ما هستان والد كل أموات أنت أم وايك على تجان هاي الأفراد إنه جورسان ما بالله رأوا نين على لينك الصوت أنت قبل والد في جنا والله ما أقول قبلها أغانت صح أنا وحصل هذا هاي غير كبار بيني قبل أنا ما كوش قيستان أما دنا يجوا وقارها بيجورك وريبة يعني قبلها والد كيف أنا هاي سنين إنه جورسان لما أقول تك إلى نوليهن أدو يكويهن أيها فاصوصي اللي قايم وأرين كلا معقول نقول كرت ومعقول أرين جرتوا أو أرين أنا مثلاً وحيابها دي قاعد وجيت أو يعني دعوين كاسكو سابسن دعوين كأنكو سابسن حتى كور أنا مقايد كشقين هاي نربي قبل أغان اللي صد دونتي صح مركنين أو هويدة قبة بحنا قبل هذا marka gabadhii la dhahay meherkaada sheego gabadha meherkaada sheego marka la dhahay waxay dhahday $300 ay dhahday aligu meheriyo ninkii oo ayaga soo wakiisho wakiilka ka ahaana wuxuu dhahay $300 ay leedahay waay $300 oo Kenya shilin way kala hadleen way kala hadleen marka haye dadkii meesha ka talatay feera la isla gaar meherkii baa dadkii meesha ku kala tageen taas markaati ka aha marka taa waxay cadeynaysaa in gabadhan waxa iyada aysan markaa dalbanin wiilkeedii lagu burburiyo wiilkan gabadh waa isukaansadaan gabadhan aabaheed uu dhintay adi hooyadeeda asqabtiin waalida u tahay ilmaha amal waay meherkeeda $300 ay dhahday meherkan waxa uu khayr badan midka yar sax waay $300 kun u dhahay waa khalad meherka dabcan horta meherka gabadha leh ayadaana laga rabaa inay sheegto waxa ay qofkan ayada afkeeda ka sheegtay $300 ay sheegtay ninkiina waalidiintii meesha joogeen waxay dhahayn $300 kun waa aabaheedana uu dhintay taas markaati u ahaa marka waxa leedahay waalidka naftooda mararka qaar waa caqabad guurka adkaanaya caqabad waa sabab bay ku leeyihiin waayo gabadha ninkeeda elkii arraba waa isqaniinaan gabadha ninkeeda hadii soo dagaalan waxa la rabaa inaa haleeso gabadha elisida la rabaa sax nin dilin waxa maqlay gadaashiis ka fiirin nin duran gabadha hadii ku soo carooto waxa la rabaa inaad hubsatid waxay gabadhaada ka soo caroys hadii ay qaldan tahay waxa la rabaa inaad gurigeeda ku eliso waalidka data sax weey marba waxa tiri adigoo dadka jeebka yar la hadlaaya guurkayaan laga cabsanin barsaaqdiisu wataay la guursado waxaad ka sheekaysay sheeka adiga kugu saabsan taa intaan u gadin geedi meeqa reer buu hore u soo yeeshay geedi waxa reer hore u soo yeeshay laba reer oo kala hore u soo yeeshay laakiin waa gabdho oo goroobiina ahaayeen sax ina halkaan ka sheegana ma rabin laakiin mid hal cunug ii dhashay sax man waxa bay ima dhalin marka
mid ka mid ah guurarkaas buu dabcan ahaa waxaad tiri anigoo meel ka shaqaynayo oo waxba haynin oo sida aad sheegtay 300 ku shaqeeyo bal sheekadaas nooga dhac guurka anoo ka shaqaynayo 300 shilin markaan guursanayo marka hadda aan guursanayo waxa ka shaqaynayo mashaarkayga wuxuu ahaa 300 shilin bish maalin 300 shilin oo Kenya money maalin sax 300 dabcan waa $2 iyo wax saas iska ah sax marka maalinta aan guursanayo ma ogeyn aan dadka aan u shaqaynayo fasax qaatay maanta waxaan dhahay ma shaqada ma soo gali kari anoo 300 ku xisaabtamayo gabadhiina aan afkayga qaban waayo meel ku shaqaysaa marka arrimaha la isku weydiiyay 400 aan wili baan dhahay boqol dheeraad aan ku darsado ayadoo yani dabcan waxaad ku tiri 4 baan maalinta qaataa 400 qaataa yani markii la isbarto yani waa laazim waa hoos la isku wareystaa ma ogtaa ay hatta ka humaato dhahday insha Allah waxa dhama lahan hatta way naga sii badbadan tahay ayadana yani ma bayasan صح maanta ma ahayd gabadhaas maanta ahayd taa marka ay dhahday dhinaca maanta ayada lacag waxaas waxa ma bal weydiinin marka maalintii labaad aan shaqada ku soo noqday guurkayga wixii aan soo dhameystay meherkii aan soo dhameystay shaqada markaan saa u soo galay dharkii aan soo xirtay waa la iyad qof oo hooga shaqo muhiim ah ayaa shaqada laga buray waxa dhahay shaqadan waa mushaarkaadana waa 600 300 ku darsan talacsiina ay bilaawad صح waayo in waa isla fiiri 300 kale dhashay hadartan shaqadaas waxay ugu dambeysay muddo ade dhowr sano ah maalintaas aan shaqo ugu dambeysay intaan macaanta isguursiina kadib wax 2 bilood ah shaqeeya u maleena maxaa dhacay shaqooyinka waad ka fariisatay shaqada waa ka fariistay nolosha waa ikaalka aday waa nolosha aan ku jiro nolol ka sii wanaagsan aan kale taas waxay cadeynaysaa gaaray 600 hatta aan yaso aan dhaho iska dhaaf ma geli karo marka nolosha yani marba si ilaahay ka dhigo waa guurkana irsaaqdiisa uu wata marka guursatid qoftaan guursateen ilmihi imaanayn irsaaqdiisa uu wata meeshaas baraka ka dhalanayso sax weey marka yaa laga cabsanin mar kale dhalinyarta aad ku boorinaysaa mar kale ku boorina mar saddexaad mar afraad guurka laga cabsanin dumarka gabadha nin oo yani gayaankaada ku geeyo oo fiican oo edeb iyo akhlaaq leh hadaa hashid yani ajaabkiis waxba weydin waa arin aad u wanaagsan ka fiirsan nin balwad lahayn oo salaadii tugto fiican hadaa hashid irsaaq waa imaanaysa gal ma sha Allah waa sax ma jiraan adiga يعني waxyaabo ku gaar ah ama sirta noloshaada ah oo aad isleedahay ilaahay bay gacantiisa wax walba ku jiraan fadaa'il acmaal wax la yiraahdo jiro marka ma jiraan waxyaabo adiga aad gacanta mid ku haysato isleedahay waa furaha noloshaada marka maxaa gaar ku ah waxa gaar ah inaan samarka qofka ay humeeyo inaan humeynin oo wanaajiyo waxyaabaha uqdadaha amal dadkii wax u sameeyaan amal inaan uqdad u qaadin oo mar walba samro qofkii yani kiri dhaha aan u qoslo oo dantayda aan fiirsado samarkaas hooga isleeyahay inaad dadka ugu duwan tahay oo ilaahay xaqiisana ugu dhowda waxyaabo badan oo noloshaadana dabcan waad u sababeynaysaa inuu yani ilaahay kuugu fududeeyo maadaama aad adiga hadda noloshaas u soo samirtay Nairobi iyo waxyaabahaas oo dhan qofka aan adkaysiga lahayn meel ma gaaro ha marka waa kugu ambaleynaa inaad tahay qof samir badan samirkana waxa la yiri ilaahay ma siinin adoonkiisa wax samirka ka weyn marka waa ku rajeynaa inuu ilaahay ku siyaadiyo amiin insha Allah dumarka kale qaar badan oo kamid ah waxay aaminsan yihiin nin faqiir ah inaan la guursanin haddii aad guursatana hadhow markuu wax yeesho aad dhibaato kala kulmi doonto marka adig aan maxaad ka aaminsan tahay nin yani sabool in la guursado nin sabool wax ka fiican horta ma balahan nin sabool nolosha uu gabadha siin karo qofku wax haysto ma siin karo ana saas aaminsanahay gabdhaha waxa leeyahay qofka saboolka oo waxba haysan oo habeenkii ku soo hooyinayo oo ka maarmin oo shilin 20 shilin oo soo halo
وأف كوجلنا كوكينا يو نينكاس واحد كفي عن منها laakiin dhibaatada jirto waxay yiraahdeen marka ayada ah waad isla go'go'aysan waad ugu samreysaa yani noloshaas adag laakiin isbedelku wuxuu yimaadaa maalinka ay jeebkiisa wax soo galaan tilaabada u horeysa uu qaadi doonana yani waa inuu kula guursado marka dumarka waxyaabaha ay u arkaan inta badan xumaynta marka la yiraahdo qiimeeyo waxaa qayb oga ah in lala guursado inay u arkaan dayacaad ama in la nacay marka sidee kula tahay in lagu guursado dayacaad ma aha aniga aan hadda ka hor fadhiyaa oo kan ah haaskii labaad u baahanahay marka waa aragnaa in badan lagu guursado horta waxa dhab leemahan gabaray adaa ninkaada qabsan karo ninkaada hadaa wanaajisid oo ka taxadartid gogoshiisa jiifkiisa wixii cuna lahaa gurigaas ilaahay keenay si nadiif ah ku siisid oo u qosashid oo wanaag ah ku noolaatiin ninkaas meelna kama aaday qofka rag bani aadanka dhan meesha oo looga roon yahay yani kama tago qof meel fiican wax fiican iska haleynay ma jiro adduunka sax marka waxa leeyahay yani qof jeebkiisa hooseeyo lama guursan karo waxaas ma jirto wax ka fiican malahan qofka dan yarta ah nolosha gabadha siinayo qof siin karo ma jirto macnaha waxa la daacadnimada ku badan meelna kama aadayo wixii soo halana si daacadu ku keena dhaxda soo dhiga saasa ka aaminsan ani sida waa si ani aan ahay waan garanay adi ahaan waxaan ku aragnaa adigoo leh waxaan u baahanahay xaas labaad oo qadaysa macaanto ma dhibsato miya arrimahaas macaanto ma dhibsato xaaska labaad aan leeyahay waa u baahanayn waa ma ka dhaba mise waa iga dhaba wax fiis iyo wax isku raadinay ma ahan macaantana waa ii ogoshahay waa wax ani ay isku ognahay yani gabar oo wax yar haysato ilaahay wax si ama qoyskood wax leh sida ay maanta hadda aan isku halin amal hadaan halo waxa rabaa inaan ku labaysto nolol kale oo wixii maanta oo wadi xaqee aan diyaar u mihi malisdihi karaa geedi waa nin aad u geesi ah guurka xaqiisana aad ugu firfircoon maadaama aad noo sheegtay inaad hadda wili stable ahayn financially ahaan wili aad halkii xaasilada la dhacayso wiliba reerkii ku siiyay ay wax badan ka caawiyaan marka adi ahaan macquul ma kula tahay inaad waqtigan la joogo hadiiba ay suurto gasho maanta aad heshay gabadhii labaad inaad guursato xagaaga waa ka okay miya xagayga waa ka okay wax haaska labaad inaan guursado oo aqabada iga haysata ma jirto waxa loo baahan yahay in gabadh geensinimadaas la geensinimada maanta u soo gashay gabar geensida loo baahan yahay mid lamid ah oo madlamada insha Allah ilaahayna waa keena waan iimaanay marka waxa aqabado ani haysatana ma lahan waxa la laab ani watana ma lahan waxa kala ku weydiinayna adiga ma jira qof abaal gaar ah kugu leh oo yani maalmo ay kugu adkeyd ama kugu darneyd meel kaaga soo baxay qof abaal gaar ah u leh waa jira wala talooyi waa qofka waa weyn gaaray qof abaal gaar ah u leh jira waa dad badan ay jiraan oo dadkii gabadhan isoo siiyay anoo xaaladaas oo munkarka macaasada ka cararay gabadhaas isoo siiyana kamid ah laakiin haday noqoto qof si abaal gaar ah anoo xaalad ugu xun tahay maalinba ka xun tahay u tahay isoo garab istaagay wiil ay jira oo magaciisa aan sheegi karin oo haaskayga gabadh oo operation ah sariir taalo markii ayada umuleysay isbitaalka asiga soo dhigay anoo jeebkayga 5,000 oo Kenya bas ku jirto oo la iga rabo lacag 45,000 ah isoo diray lacag $700 gaarayso oo mar badan ay caawiyo oo mar dhow walaashii xanuunsaneed hata isbitaal ku jirto iga bixiyay magaciisa halkan kuma sheegi kare waayo asaga ilaahay dartiisa ula baxay in amaanu dhicmakum liwajin ilaahay ula baxay magaciisna muhiim maahan inaan halkan ka sheego magaciisa muhiim ma aha macaan baa qof iska familkaadi eheladaada kamid ah والله قف Soomaali la isku nahay waa wiil Soomaaliyeed oo ogaadeen wiilkaas mar walba waqti kasta ina time hada niid ku haya oo ducada afkiis aan ka dhamaan afkay aan ka dhamaan ducada aan ducayna afkay kama dhamaado salaad kasta wiilkaas si fiican ay taabtay qalbigay u taabtay ma sha Allah waa dadka muxsiniinta aad bay u wanaagsan Allah barakeeyo dhamaan dadka ninkaas amal ina ku daytiin saas ahaatiin isticmaalka TikTok maxaa faa'iido oo noloshaada ku soo kordhiyay isticmaalka TikTok
dadka inta badan waxay dhahaan kaamarada waa lagu waashaa kaamarada saan waay waan aragnay ana TikTok isticmaalkiisa waxyaabo badan ay soo kordhiyo oo wanaag ah sax sheegana waxa laga fiiraa mal walba wanaag sax dad waxaa jiraan oo ehelka ii soo dhow ah anoo shaqo ku jira hataa ay dhahaan mar waa waashay ninkii waa waashay soo qabta qaar ay dhahaan waa kana uu shaqeynayaa sax dadkaan u shaqeynayo hataa waxay dhahaan mar waxay jirtaa waxa aad duubaysa iska dhaaf haddii kale meesha waa nooga ka bax sax shaqo saas la soo fiijiyaa taa waa jirtaa laakiin dad jalaq uma siin mar walba sheegana waxa laga fiiriyaa mar walba waxtarka uu ku taraayo sax marka anu waxa mar walba waxa raaca dantayda raaca sax waxa danka oo ninkan waa waalan yahay wuu xanuunsan yahay wuu aqli ma qabo wuu dhahayaan waxaas maan u xumaaday waxna kama soo qaaday marka TikTok isticmaalkiisa waxa ii soo kordhay waxyaabo badan oo ii soo kordhay dad badan oo iska keen baray Soomaalida badan qaabkay u shaqeeyaan ogaaday yani waxyaabaha jecel yihiin waxyaabaha Soomaalida neceb yihiin ogaaday waxyaabo badan ashar badan ka bartay ma jira waxyaabo fursado ku ah oo yani adi ahaan maanta aad isleedahay dadka inay bartaan oo TikTok-gaas aan galo fursad weyn bay yahay hadii ay social media fursad weyn waaye adduunkan hadda xilliga xoog wax lagu halayo waa la soo dhaaf dhalinyarada xirfadu ka mid yahay laakiin mar walba waxa fiican yani sheega waxa irsaaqada cunaysid in aad wanaagana inaad ku dadaashid ku daawanayaan hooyooyina ku daawanayaan dad oo madaxa ku daawanayaan waxa la rabaa waxyaabo wanaagsan inaad soo gudbisid way fiican tahay waxyaabaha dadka kala geynayay oo qabyaalada saas oo xun waa inaad iska dhaaftaa marka saas waa inta isticmaalaysa TikTok-ga maxaa kugu yaabanaa bulshada kala kulanto ama nolosha guud ahaan baan dhaho intaan isticmaalay horta aniga saan ku soo sheegay waxyaabaha xun maskaxda kuma keediyo wixii wanaagsan oo si wanaagsan ila dhaqmo oo isoo xariiriyo kuwaas keediya maskaxdayda keedisa ku xun oo waxaas maskaxdayda ma keediso gabdho badan oo ay dhahaan anaga diyaar ku ahaas kala baad aniga anta imo numberkood isoo qora waa kana anta ku taaganahay soo istaag Mareykan jooga number Mareykan isoo qora waxaas amal oo qaab fawda amal waxay dhihi lahaayeen hadee maskaxdaada si raacisid waxa dhihi kartaa yani waxaas ay u yaab badan laakiin ani kama soo qaado intana kama soo qaado waxay si dhab ila soo xiriiraan bas waxaas wax la qabtaa hadii aad noo soo koobto geedii macanta sidee isku barteen sidee ugu suurta gashay inay isku sadaan maanta iyo aniga saan isku baranay video-ga aan horay aan soo post gareynay aan dhahay ilaahay oo guur ii sahal walaalaahuma maalikul mulk aan dhahay soo daawatay maanta follow ay soo dhahday follow baa oo ile anoo gabdho badan ay u ciyaarayaan oo qaar intii soo istaa qaar hata hoteelo ku kulnay oo dhahay ay dhahay markaas aan u kulnay inaa xanuunsanta u maleynay waa view yahay sax gabdho wax badan oo waxa arkay Mareykanka ama hoteelahan degan oo ay soo qabteen Nairobi buli joognay meel hablay nooga imaw oo marka qofka uu imaado oo shaha wax dalbanana dhahay walaalo waa fiican tahay maskaxda bilaay ma qabta sax intaas le walaalo iga lahaw kowda konton dollar qaado yani qof xanuunsan ku maleynaya ilaan leejina tahay hor u soco yani ani hadda haas ama gabdho badan oo hataa weegan ismeersanayna weega kala dhahaana tawa laakiin oo dan ii sheegana ayada daacadahay inta أنا داعدة هاي يعني قف حال كم قام أنا قانت جليا قف إيه ما مركو رهب وأنتجا تنا داعدة عليه ميلو بقى أنت ما تكتاج كبافس جور كي تكتاج كباف كده أنا ساس كونول أو يعني قف إيه هم يعني قانت قاعدة يا أما أنت إلى سهرة هذا أنا ديار هو جبرية هاي واحد هذا بكلنا تكنا هاي بكلنا استيد مو بري سنين أحب بس بكلان استيد مركز ماذا واي ودي حافظ إيجيس قبلها واحد من نيروبي عمل قبل قف مركز إسبالنسيتين سنت حق قبل عمل يكون إمانان أما قبل إلى بوي يكون إمانان أيضا كل جدا استيد كي ماذا ودي جرو إيجيس مركز واحد هذا سنين إسبالنسي سنين تي أفرس عمل أو تجا جد أدمي ها بس مكان marka waxa weydiiyay kaftana u weydiiyay oo qanacad ma waxa iska bax waa dhaar aamus makan xaafada ku geyn sax isla markii waalidkeeda igeys
بس أنا يعبنا قريدة بنتي يعني قف بنت مركز تدك كابت بديان هذا أمين وايسة ما آمنيش ما أنت ملو قديل ربع ملو سألوا يا رب أنا له حافظ إنجليزي كراس مش هنفرق على جروين لابد يوالد على كان ولا عليه أيضا هريا مقال كي صوت داون أنا هلا بس كبر وقت وحلا قارب منها حتى هلا وعلي وداري ديار مقطعي واحد الشيء يصير بس اللي ويدي قبيل مو يديني ما حتى اللي ما دهن واحد الشيء يصير جورا أبهنا على هذا لما كايه وإلهي مكروه أبيه ها بس جار ولا ما أنت أصلا ما أنت لو وده منه والد كان لما دهن ولا هذا أنت كان لما ضد اللي أنا كان لما دهن أصلا ما أنت لو وده منه أصل جورا أنا وأجوي سنة أنت كون ولا أنا المهنة كم تهاني سنة جوري مع الجبر جوري مع الجبر مرك أنت جوري هوا كشيء وايو ميل والد دين تاد الجوجان الجبر نهلا وسي جور نهلا وسي وحاس وجور نما وحاس لا وضع مركو هوا فالحم أدوارك إصدبر جوري إسكابل أكان سلوا وأوشة أيضا وأوشة جوري دكان هوا جوري إسكابل سرير حتى ما طالع جودير الأوكيال وأقولها جودير حتى قاعد هدورة أدار كل كاسحنا marka gabadhaas horta lagu daydo maanto waa gabar aad u wanaagsan ayadana aftarkeeda gaalka dir kartiisa si ala lahaa abaal aad u weyn u haya oo aad u weyn boqolkiiba boqol ma sha Allah adigu maalinkaas dareenkaaga sidoo ahaa yani marka adigu waxba haynin dareenkaaga wallahi ama $50 lacag ka haysta gabarna rabo wixii oo dhan la isku ka daray wallahi horta muhiimaddu waa qofka mar hadaad yani run ah ku socotid oo mar oo daacad had mar daacadnimada hadaa ku socotid wax walba ku fududaanaya ani la laab moodanin maalintaas yani wad toosana ku socda ama dhamo ama noolo ah alamu way insha Allah gabadheena Ilaahay i rumeey waan rumaysan way markii la dhahay waalidiinta markay imaadeen oo la yani waxa laga amro markii waa rumaystay yani meel waalid ciyaar ko ma dhahay gabar waa ku siiyay moogta sax marka meeshan waa rumaystay in gabadheena la siiyay marka waxa go'aansaday inaan laba haniyo noqdo oo yani gabadha markaan inta gurigan lagu si aan iska dhaafo haniyay meel aan ku dagsado haniyay aan ku noolaado Ilaahay talada saar taas go'aansaday go'aankaas aan ku taaganahay waana noolnahay dabkan uu shidan yahay ma sha Allah hadda noloshu idin fiican tahay nolol fiican ku noolahay ma sha Allah waxaan aragnay adigoo dhahaya Soomaaliya ama dadka Soomaalida ah waxa roobka loogu diiday waa dulmiga iyaga sameeyaan waxaad ka wada dadka Soomaalida ma bulshooyinka kale ka dulmi badan yihiin sababta ma taqaanin sababta Soomaalida Ilaahay abaaraha ugu salladii ma taqaanin dulmi fiir wadanka fiir Soomaali gees to gees ma taasay u gargirinaysa olaada waxa hore way xukumo ciidamada hore dooma nahay halkumeesiga ku jirna يا لو حروا يا سحروا يا كده حجروا يا لو حروا ها وارجمات إركي أبي إلهي كهر طيب وعروبة نسوقها مران وعروبة سوقنا إذا قاعد تلمي إلهي وحولي ونعبيه إلهي ونعبيه marka idinka as dulmaysan صح يعني dulmigan horta Soomaaliya waa is dulmaysan run waa in aadan horta runta marka runta sheegtid dadka inta badan ma ogolaha waa is dulmiyaan qabyaalada isku dulmiyaan qoysas isku dulmiyaan si kasta isku dulmiyaan Soomaalida hatta xaasaska ay qabaan ay dulmiyaan ilmahooda ay dulmiyaan marka dulmigan mar walba waa laga fiican yahay in la is dulmiyo oo qabiil isku dulmiyo oo qabyaalada isku dulmiyo ma fiicano marka Soomaalida waxa ka codsanaya yani inay iscafiyaan oo nabadgelyada ka shaqeeyaan adduunka wax nabad wax ka fiican ma lahan صح qabiil qabyaalad isdil wax ma taraayo hadii Soomaalida isku imaato oo hal saxan wax isku cunto Ilaahay roobka waa soo deena صح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا رحيما صح ودردارن aad u wanaagsan gabagabadii baan joognaa markaan adi ahaan hadii aan su'aasha kugu soo celiyo ma jira qof aad dulmisay oo aad halkan cafis ka weydiisanayso sidoo kale mid adiga aad wax ka tabanayso iska u cafinayso
والله كفاية سنة برامج كنت والله يا با كل قف واحد إيه قبو لكن ما آمن سنة قف عن وجستي واحد ظلمي أنتو بدن أنا واحد وبدن هايسان أنا إسك آمن سنة هاي إن مرة البقدة التوصل عن قصة عضو عن للحد عن بلاوين تذكر ميله عن كشقينا عمل تذكر عن شقينا ستة هذا أو شقيا وقت عمل هاد شقة اللي سوق جلايو هذه الشمس عم لحس على سوق جلايو دقيقة ويلي بوصهر مريا سي عن أو قفكاس أوقن إيوه هذا وصهر مريا من أدنى تذكر أنتو بدن تذكر مساكين تو داعد أنتو بدن لما احترام ولا مرة marka xagga guur ha noqoto dhan kasta ha noqoto wax aan dulmiye oo dulmi aan u geysto ma jiraan aan u maleena ma aaminsan inay jiraan haday jiraan ha afiyaan Allah kale bin aadan ah هذه waa arin aad u wanaagsan marka bulshada dhan waxaad faraysaa inay iscafiyaan Soomaa bulshada dhan waxa faraya inay iscafiyaan ani shakhsigayna ani maskaxdayda saan ku soo sheegay waxyaabaha wanaag bisa keediya صح waxay isoo xumeeyay anigu waxba kama soo qaado sidayda goormaab uqdad u qaada صح dadka xumeeyaan oo beenta ishagaan oo qiyaamayaan uqdad uma qaado iska cafisaan waa isla markaa cafiya waxa damaanta inta si gaar ahaan aan niid uga hayo oo qol mugdi aan ula seexdo oo hebel aan isleeyahay ma jiro ha صح dadkeena intooda badan waxay aaminsan yihiin haddii lacala qof ay wax dhaxmaraan mid kasta meeshiisu isku adkayaa wuxuu yiraahdaa asbacafis ma weydiisanaayeen haddii aniga weydiisto wuxuu ii arkayaa inuu ama iga badiyay ama aniga wax uga baahanahay kuwa noocaas ayaga maxaad farin kuwa noocaas horta Soomaalida inta badan way u badan yihiin boqolkiiba 90 waa صح qofka bini'aadinka ee Soomaalida inta badan gartoodana waa gar qofka haddii asiga wixii uu rabay hadduu waayo waa mucaarada noqonayaan waa ku mucaarada ama saas cugdada ku qaadaya ilmaha yar hata waxa fiican inuu yar hata oo qof ka liita hata wax ku samaysid aad dulmisid isla markiiba inaad madaxa gacmaha u salaahado ma ahan yaani aqli darana ma ahan inaad qarato waxa qaladkaada inaad qaratid wax ka fiican ma lahan صح ilaahayna uu jecel yahay dadka oo yaani mar walba soo laabto oo kumaanti ay sameeyeen ka soo noqdo oo waxyaabaha maanta yaa wax ku sameeyay dhaha oo dadka iska cafiyo oo wixii qaladkooda qirto dad aad u fiican waa Soomaalidana uma badan inta u badan هذه aad dhibaatooyinka markaasi dadka badankooda laga yaabo inaysan dareensaneen waxa ay kamid ah qofka kale wuxuu arkaa qofkaas uu cafinayo oo kaliya inuu baahay u qabo laakiin asaga naftiisa xayraad baa fuulaysa sida diinta noo sheegtay afiska adigu ku anfaca oo qofka waxaana loo sheegay in isbuuci 2 jeer uu Ilaahay umadiisa oo dhan cafiyo inta aanan u shirki yeelaynin oo dhan إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء قف أسجى يولالكي وحقددا أما كده احتاجنتها حرقوف كواسوك لا بها أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا هو عندنا عودة أنت أي أرنكو ذا حل وصل أمينا يا مركا حدي قفك واركو waxaan wax qofkan kale uu kaga cad goosanayo oo uu leeyahay maadaama uu dhibaatay lagama yaabo in cafiyo dhahan qarkood ayagoo bagoodin sheekadii ka dhigay marka ayaga laftooda baahida ugu badan ayaga qabo waxaan faraynaa in cafiyaan wixii wax u geystay si ayagana Ilaahay u cafiyo cafiska mar walba horta uu fiican yahay qofka bani'aadanka qofka aad dulmasay mar walba waxa fiican inaad yani عفس أول دستي قفك عاد ظلمسي حتى 6 مر قفك بن آدم كهدي عاد قفك عاد كل ظلمي هاد أنتو كو ما هذا عفي كره 6 خلاص مر وأنا عفي ساعدنا صح ها وحيوصل على قصة وحال يري جبر با وحي إسقطين جبر كل مر كورني عاد سكوت دوايين صاحبتني ما كده حيسي وعلى سكوت عاد ضدك شيطان بقى كده حشقي كده با واحد علي mid gabdhii kamid ah inay gabadhii u imaatay ku tiri walaal iga cafi wixii waaba dhaceen hadda gabadhii waa ay diiday mar kale u soo noqotay tira ilaa 3 jeer mar kasto gabadhaas u imaatana way diidi jirtay iyadoo inay iyada wax kaga goynayso oga dhigayso
waxaa ilaahay qadaray inay gabadhii cafiska dalbanaysay geeriyootay maalmo kadib waxay si kadiisa ku maqashay markaa in ay gabadhii geeriyootay waxay tagtay meeshii meydka uu yaalay oo tacsidii iyo wixii bay dadka kala qayb gashay markaasaa waxaa la yidhi gabadhii oo loo diyaarinaya in la mayro ayay u gashay wejigay sidaa uga feeday markaasay si kor ah u qosashay dadka aad bay ula yaabeen dee meel meyd yaallo qof damiirkiisa joogo muslim ah walaalkaayo dhintay inaad wejiga intaad ka feedo ku qosasho wax aad ula yaabaan bay noqotay waxay u sheegeen marka culimmadii iyo dadkii waaweynaaye ee bannaanka joogay gabadhii waa loo yeeray waxaa lagu yidhi maxay ku dhacday walaashaa oo meyd ah maanta inaad wejigeeda intaad bannaysa aad qosasho dadka qaar baa la dhihi karaa way iska maangaaban yihiin ama waxbaa si ka ah waxay tiri gabadhan hadda ka hore waxay igu samaysay oo wixii cuqdada ahay haysay bay ka hadashay waxaa la yidhi culimmadii waxay ku dhaheen gabadhan meydka ah arrinka hadda aad ku samaysay ama dembiga aad ka gashay baa ka weyn waxa adiga aad ka hadlayso marka waa wax jira oo in badan dhacdooyinkaas la arkay in dadka ay يعني qofkii wax u geystay cafin waayaan qalbi adayga inta la eg waa waxyaabo qofkan asiga ma dareensana laakiin dhibaatada ugu badan ee uga soo noqonayso dhibaatay keenaha arintaas dhibaatay ku keena qofka hadii cafi ku dhaca aad cafin weyso ilaahay uu ku eegayaa uu ku nacladaya ma fiican qof cafi dhahay marna inaad diid wax kasta kugu sameeya qofka marba hadii ilaahay waafajiyo inuu cafiska ku soo weydiisto waxa fiican inaad iska cafisid haddaad diidid ilaahay uu ku nacladaa ma jecelo ilaahay ku nacaya waayo qofkan ugu toobad keenay qaladkiisu gartay Allah weyn baaba marka dambiga looga noqdo dadka sax marka waxa fiican mar walba inaan is cafino xaaladaha qoysaskii meelaha dadka loo shaqeeyo in hoos la isku eego oo la isku naxariisto taas mar walba noo fiican haddii aan ka gudubno cafiska waa su'aashii ugu dambeysay waxaad tiri guusha way saaxiibo badan tahay guul daradana wax saaxiibaba male sax maxaad ku cadaynaysaa arrintaas waa run haye markaad guul daraysato oo aad oloosha ka hadasho aad rafaadid cid ku rabta ma lahan sax way kaa kala dhuumanayaan asxaabtaada kaa kala dhuumanayaan ehelkaada kaa kala dhuumanayaan waa ku sheegay hadda markii aan ku dhahay oo haaskaas maanta aan raadinayo aan dhahay ilaahu guur ii sahal dadku waxay ilaahayeen ninkan uu waalin yahay saan waay wo qaar hataa wadada hataa isla socon waxay dhahayaan waxaan lagu sabarin niga le xagga u socda ani waxa qofka shishatiri u socda waxay dhahay dhinacaas u socda oo qaraabo ana sax maantana yani gurigeyga dadkii saas ay u soo booqnaan way soo raadinayaan wiilkeena anta degan walaalkay anu ila dhashay ilaahay maanta kii aan qaraabo koraad aan nahay anu ila dhashay ninkaas ma tagaan anu ila dhashay ninka ma anto dhahay anu ila dhashay ilaahay marka saas way guushu way saaxiib badan tahay la sheegay arintaas keenayso marka wax yeelata dadku way soo wada baxayaan marka wax noqotid ama wax yeelatid dadku way soo wada baxayaan saaxiibaa yeelanaysaa waa lagu salaamayaa waa lagu soo dhaweynayaa laakiin marka saas tahay oo ani hadda geedigii la kii waa waalin yahay dhahay la laakiin mu waalnayn dana ay wada sax darufta meeshaas igeysay inaan gabdhihii oo intaan hotel u yeero aan shukaansado maantan been ishaagto taas been ishaagto qarash aan bixiyo aan agoodi waaye taas marka igu kalaftay inaan xirfadeeda banaanka soo dhinto daacadnimada oloosha aan ka hadlo dhax guur halaala u baahanahay waxna ma haysti intaas bis ah tiya marka waxa la igu bedelay ka kacaway kan ana qof xaafid quraan ah quraan soo bartay oo macnihi soo bartay qofka mar haddii quraanka barto macnihiisa ku dhaqankiisa bartano جاهل من نقول كرها من حفظ القرآن فقد درجة نبوة خير جنبها الله وفق هذا القرآن كبرتو معنيه برتو أو كل أقمه ما شاء الله درجة نبيهم بارسينيا لكن وحي أسبوع كسر دقائق ملها مركز دك أنتوا بدنا إيميلنا وفق جاهل واي وفق أنا حق ما دق هدي عن جاهل كنا قضنا قف دين له إيمان له قف قرآن كي معنيه سوي ولا فيه سوي قان جاهل ما بقى صح marka mar walban waxa ku soconaa wadadaas toosana iskaga socda daacada ahay dadka aan u shaqeeyo wanaaga kula dhaqma dadka aan la noolahay dilskan lahayn wanaaga ku dhaqma kula dhaqma
wiilay waxa ma soo xadin waxa aan soo xaday gurigeyga ma keenin balweedna ma yeelanin anigu waxaan isku aaminsanahay yani qof u fiicnaan aan ahay laakiin waxa dadka iga aaminsan yihiin waxba u marko waa ku mahadsantahay waqtigaaga barnaamijkeena intaas uu iigu noogu egyahay soo dhawow mar kale insha Allah waa dhowahay channelkan waa ku dhowahay aad baa ugu dhowahay waxa idin leeyahay asxaabta aad daawasho wacan like iyo share waa xaqiina iyo subscribe waa xaqiina waxa baxa akhrina idin leeyahay inta wanaagsan wanaaga si wanaajiya أنت حنا حماتة جوجية إن لا هي سومالي هلا سكوار قبا ضدك أو يعني مسجد ده ويل رك الدمر ضدك وناكسون أو يعني هو قاعد أنت إيه ليسو كره هلا سو قاعد هلا سكوار قبا يا لسياسين وما تصنت أكو ما تصنت أد ودوا برنامج